أبو هي أبو راديها كل مية إيسار إينا كان هيا أبو warkan kooxdu ku doodo marka ay ka hadlayso midba koona la aado KNN ka deyso liira kalamaano kumanaan ku dhageysto adiga kulanow marka ay ka dis joogto ninku fiican ahaaye bulshadan koranaysa bal maxay ka heshaa arin ay la kurbooto ka shiilaabta gubaysa ayay kaftan sheeka ku saabsan kaga soo gudbiyaano kobtii loogu midnaa iyo qandhadii karinaysay iyadoo kalarkiya markay jaamac kudaada uu kulmiyo tabinaysiyo kalamaan ka maqlaan kaarkii baa ka yaraado kaniin bay noqotay dawo ay ka badaane maxaa loo koran waaye ka haddaan ka ogaadi ileen waa kulmiyo dadka waa kulmisaaye kaniin may noqotaa iyo daawo ay ka badaan yaa salaam inay dawo tahay waxaan ku kasay aniyaa kumanaan qofood kurbey kaafeyday kalamaan aniyaa kumanaan qofood kurbey kaafeyday kalamaan KNN Chok adan duula sharmida arkeen haagee joogsanina ka wareeg arlankii gowdhan haya geekahani waaladi wariyo warka iga du baraadar anigu man waalane waan idin fooxinayaaye idinkaa waasaye bal fooxan dabka idinku ridayaa si ay u midowdaan oo isku mid u noqotaan sida iyadoo kale warlan waaladi waryay gobad meele warka kiiday dhagansada shirkii lanka hadal ay dastuurka geeka furumi madaxda badasheena roogan oo ra'iisul wasaaraha horeeyay maamul goboleedyada kalena roogan laakiin markii la kareeba al-sayid sheekh ahmed madoobe goor boolay la udur daardi aan walaana gorodaw ma munko gabiye oo ay dhimaatire beerto gabiye oo ay dhimaatirade moorada oo loo joog gabiye oo ay dhimaatirade waa dheegi jari laakiin dastuura gabiye ee wali dhimaatire wali leeyahay wal miin qadareew rabbiyo wal miin qadareew dastuur dhimaatire rabbiyo wal miin qadareew aan andan ku birmi adal dastuurka iyaga Soomaaliland qabyo ma aha cidina rabta inaan ixtiraafno gacmo furan ku soo dhaweynina war waxaan idin weydiinayaa qolada Soomaaliland ixtiraafka ay raadinayeen xataa birif yar xataa meele warnimayana war idin haya wasiirka dadka maamulka Jubbaland ayaa waxa la weydiiyay sababta aysan uga qayb galaynin shirka dastuurka ee Muqdisho ka furmay markaas wuxuu yiri waxa Muqdisho lagu hayo waa shimbiriyo oo heesa dan helana kama leeyin marka waxa la weydiiyay waa adiga dawladii shirka ay qabanayso la shimbiriyo oo heesa weeye dadka ay fataaduhu saameeyeen ee ay dawladdu u garmaday maxaad ugu gurmadi weyseen oo maamulkiina hoos yimaada wuxuuna yiri iska daa kuwaas fataaduhu saameeyeen waxooti kale Soomaalidu dibadda ku maqnaa ayaanu u sameynay dibadajin oo dhul u gadnay waana u dhisnay marka waxa yiri wasiirku waxa yiri dawladda sheegayso miyay sheegi kartaa qaxooti Soomaaliyeed meel ay hal buush ugu dhis waa idin la yaabay anigu gobolaysi ayaad ku waalabteen madaxweynaha Soomaaliya mudane farmaajo wuxuu yiri waxaan darisaynayaa dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho si daris ah oo walaala ah oo cadawgooda gudaha iyo dibaddaba iska kaashada inay noqdaan tolow arrintaas ma bilaabay madaxweyne farmaajo maanta waaba fiicnaa leeda doo sameey wari aan baro joodarkii halka jiifatay ma ka kana dad darisay langaada leeta diyaarada koray dalka qadaraan baahi warada madaxweynaha Soomaaliland ee Muuse Biixi beer hore ayuu ka soo laabtay Imaaraadka Carabta warnimayo warmaysiin maalmahan waxa ii muuqdo khilaaf wax la yiraahdo war bishan wali ma dhalane goormeen isku khilaafnaa in bishi la arkay inaan la arkin warka kala iga darsan khilaaf kala ii muuqde madaxweynayaasha Geeland waatay ka soo qaraabteen Imaaraadka Carabta ayagoo midba gooni u baxay hata yeeshee عدوليكاس يا أحمد مدونا صوتي دهن دولة الصومالية دنهنا كما شقيسو وحين اسكويرتين شير ايقوم ما يحضرين شركة مدحوين ياشا جيدلان وردونك كنو ورموشي دي وركيسة فايلن ديك رير دون اسل ديين ليما مسل در دارن نلعرا
reeraw geed leen shiraana leereen ma meeliyo ka shir laayeen aa shariif jiray saddex teegan markoona golka geeska safeedeedo hay markoona geeska safeedeedo haani kala moqanyin wariya dad isku war hay mi in sheegdoona mad madoobow allah ku yaqaan war niman yaabina waa yaaba yiri ana waaba yaabayba waxaan la yaabanahay ayayo kim jon un iyo trump miyaa la yaabtay maya ayeeyada may baa liyaabsanta talaka bahowkii taraam war adigana kim jon un iyo taraamad ku waalateena warkayga dhexgelina i dhegaysta gudoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho mudana yariisow wuxuu sawir la galay wiil yaroo fanaana oo magaciisa la yidhaha qadarkiyow sawir baa la gale waxaan la yaabay wuxuu yidhi waxaan kala hadlay wacyigelinta fanka soomaaliyeed badad lala tashtaa la waaye ambara waad ka dhacsan tahay yurubgeeyo waa fanaanad somalilan beri hore anay ku soo laabatay somalilan oo somalilan bay imaka dhex joogtaa warwal ma oshiidin beelaha tukuraq iska haysada lanka heliisiyohay beesha lihaad lanka aawyahay meejalkiitin leeraayu geega meelo dikaari war beentiinna waaye maareeya abwaan guure weligiisa tukuraq ma tegin guri ceel ayuu joogaa war adeer tukuraq annagaala waa gobol somalilan ka mid aniyow dul soomaaliyeed wariya tukuraq dol soomaaliyeed Soomaaliya ay dhiwaataynin walaaliyaalkii